السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaasheeda qiimaha qaaya leh adduunka daafiisa joogo waxaan halkan maanta aan Hadagaala News inii soo gudbinaysaa. Hadagaala News Radio oo waraysiga adduunka daaladiisa soo duubta. Saida Barre oo joogta Paris ayaan maanta waraysi gaar ka qaadaynaa ayada oo ka hadli doonta wadanka Djibouti xaqdarrada ka socota iyo dulmiga dawladda Djibouti ay shacabkeega ku sameynayso. Djibouti xurriyad ayaa laga qaatay Faransiis shacbiga Djibouti inuu dagaal dib u galayana lama moodin iyadoo Saida Barre ahayd dadkii halka Djibouti taariikhda u soo galay ee jabadii ta Djibouti dawladda uga baxay. Saida Barre ku soo dhow programkana magaciisa gurmad Djibouti badbaadada Djibouti ayaa la ilaahay ugu magac darnay ku soo dhow programka badbaadada Djibouti. waad mahadsantahay duwaykan diyaar baanahay caawa waxaan u faxayaa ummadda Soomaalida ee jirka mid ka nahay ee af wada nahay ee adin wada nahay tuugintu waxa ay la qaymadeen ay u geeyeen taasoo ubadkii Djibouti ay gaajo iyo dhakhtar la'aan kaga joogaan hadday tuugooyinka dad moodeen dad maaha kuwaas waa kuwa soo tufnay haddii ay dad moodeen waxaan ku daynana maaha ummadeeda Soomaaliyeed isku midnahay waa inay idinkaba ka joogsadaan hadday ka joogsan waayaan walaalahayo ballan iyaan idin qaadnay inaanan inigu daynaynin wuxuu ubadkaygu ka baktiyay ee diyaaradaha la inila soo raacay ee tuugada la inila yimid maaha warshado ma hayaan waa wixii wadanka ee ubadka gaaja ka laysay weeyaan ee baktigu u xaraar yahay dadka iyagii haddii walaalahayo idinka oo eegaya inantiina waxay soo xadamaayeen warshadaha beedka hadhay ma jirto walaalahayo waa isku kala dirina dad mid aan nahay dad Soomaali aan nahay markaasi cadawga aad noo garab galaysiin ma jeclin xumaana waa inii qaadayna inimana daynayna xaqayagi soo dhiganay oranayna maalinaan maanta ahayn marka calina sunka hadaasiisiin ubadkiina ku dhammaan markaasi waxaan leenahay walaalahayo Marwa Saida waxa weeyaan programka badbaadada Djibouti waxa inaad ka hadashaa xaalka hadda taagan maaliyadii wadankana dee waan ognahay oo dad baa haya dawladda yaa haysa shacbiga oo madaxweynaha Djibouti baa loo doortay ilaahayna uu weydiinaya ummadda Djibouti waxay la xisaabtami doontaa meeshuu maaliyadda mariyo madaxweynaha Djibouti ayaa ka mas'uula marka adu maanta siyaasadda meesha taagan inaad ka hadasho ayaan doonaya wallahi siyaasadda maanta joogto fiican maaha wanaagsan maaha waxa Ismaaciil Cumar Geelle oo imanka qolo kale lagu sheegayo wuxuu noo sheegtay inaan ummadda raggii dalka ahaa inuu ka masaafuriyo uu laayo uu dhameeyo horta ragga Ciisaha wax u haray ma jirto ku ka masaafurinaya dalkana isagoo sidaa u eegaya abakada looba oo katiinad ku xidhan iyay soo galayaan waxaasi wax annaga nagu dili karayo maaha dalku waa dalka yagii ugama baqayno maxaa heedanay General de Gaulle waa ka ridnay muxuu yahay isagu xama waxabashi aan waxa lagu wuxuu yeeli garanaynin afku leeyahay aan la garanaynin markaasi waxaan ku daynayno annaga naguma cabsiinaysid waa tagtay niyadaada u sheeg nagu cabsiin maysid ubadkayaga gaajadaad ku dishay ee bilaadawada ka dhigtay ee aabayowgoo dishay waxaasi waa waxaan kugu tirsanayno marnaba hamoodi waxaan kugu daynayno ood ku nabadgelaysid ifkii iyo aakhiradaba kuma daynayno kumana doonayne dhan nooga kac oo ubadkayaga nooga dulkacad gaajada kulayseed aabayowgoodna dhammaysay Ismaaciil Cumar Geelow waa Ismaaciil anagu ma garanayna meelaad ka timiday ninaana Ciise ahayn oo dhiiga Ciise aanad lahayn aad baa ku fahanay kolkaasi waxa aan ka dhigayni ma jirto maanta waan ka soo horjeednaa waa ku nacay ilmaha shalay dhashay oo ku nacay markaasi waxaan ku leenahay waa in badan ba nasiib lagu siiyay oo lagu yidhi ka aan iska dhaadhac boqorkayagii noqotidee lagu yidhi maanta se ma jirto way ku dhaaftay taladu taladaa ku dhaaftay hadeed adiga taladaa ku dhaaftay swata
annagase ubadkayaga gaajada aad ku dishay ee diyaaradaha ku guraysa xaqoogi ilaahay uu ku weydiin ana kula hadaan noolahay wuxuu baa naga noolaana uu ku weydiin oo ku weydiinayna intaan kaaga hadhayna ma jirto Jabuutina mara bay doonaysaa martabadeeda qurinaysid adiguba waad garan markaasi maanta gacmo kulul baad ku haysaa dalka doqon baa tahay nin maxay haydeenay la tirsado matihid kuma aan doonaynaa dhaafo naga dhaqaaq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaashana qaymaha qayaalow halka waxay inaga soo gudbinaysaa waraysyada adduunka dacaladiisa waxa weeyaan waa Hadagaala News waxa weeyaan halkaas wixii kasoo duubina waxa weeyaan waxaan la hadlaynaa waa halgamaa weyn oo reer Jabuuti oo la yaqaano gabadhaas oo baari joogta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haye waad mahadsantihiin